gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil oo ay weheliyaan waxgaradka iyo dhalinyarada degmadaasi ayaa soo dhaweeyay siyaasi Khadar Maxamuud Galbeedi oo kamid ah musharaxiinta golaha baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana gudoomiyuhu agab ciyaareed kala wareegay siyaasi Khadar agabkaasi oo tartan ciyaareed lagu qaban doono kooxaha daayirta ee ka dhisan degmadaasi Ceegaag aqalada ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Ceegaag dhammaan dhalinyarta bahda isboortiga degmada Ceegaag aad iyo aad ba mahadsantii sida fiican aad noo soo dhaweyseen halkan maanta waxaan ugu talagalnay 4 kooxood direyskoogii halkan maanta aan ku bixino iyo koobkii iyo biladihii imikana aan ku wareejin doono maamulka degmada wixii ka dhimana loo soo dhameystiri doono marka koobka loo soo diyaar garoomana sidaasi maamulka ay u qaban doonaan insha Allah ta kale waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa reer Ceegaag waxa jirta imika diiwaangelin baa jirta diiwaangelinta jirta in aad ka qayb qaadataan oo isdiiwaangelisaan oo aad wax weey doorashada waxa ka horeysa diiwaangelin baa ka horeysa taas marka inaad kaararka aad qaadataan oo kii aad jeceshiin ee idinka wax idin taraya aad u codeysaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maanta diyaar buu yahay gobolada Sool Sanaagi inuu ka hormarsiyo gobolada kale waa taymka garoomadina la casriyeeyay insha Allah haddii aan xildhibaannimadeeda ku guuleysto inaan garoon aad habeenkii ku ciyaartaan oo roog leh inaan idin sameeyno ayaan isku daynaa insha Allah haddaan ku guuleysano odayaasha iyo dhalinyarada degmada Ceegaag ayaa soo dhaweeyay siyaasi Khadar ugana mahad celiyay agabka uu soo gaarsiiyay musharaxa Khadar Galbeedi oo wax badan oo hore magaalada u qabtay imikana sidii wax qabadkii ula daba jooga cod baa tiriyo cod iyo calaf waa ku siinayna waanuna ku garab taaganna aad iyo aadna waa ku soo dhaweynayna waana ka gudoonay alaabtan sharafta leh aad noo keentay aanu soo dhaweynaynaa musharaxa xildhibaan Khadar Galbeedi waanu ku soo dhaweynaynaa waxaan aad noo keentayna waa ka gudoon horena waad u keeni jirtay dhalinyarada iyo waa dhowr jeer oo hore waad keentay afka isboortiga musharaxa golaha wakiilada ma aha markii koowaad uu noo yimaado ee uu na soo booqdo uu noo keeno qalabka isboortiga oo dhammaystiran waa markii afraad mar walba ballanqaadka uu keeno uu nagala tago uu soo waajibkada uu soo gutaa hadaan nahay dhalinyarada degmada Ceegaag waxaan soo dhaweynaynaa murashaxa xildhibaannimada Master Khadar Galbeedi oo nin ah deegaanka u dhashay ka soo jeeda wax qabad ma garanaysa deegaankiisa horey noogu yimiyo noo soo booqday wax badan noo soo gaarsiiyay haddana wax qabad dhalinyarada isboortiga u wada gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil ayaa uga mahad celiyay musharaxa agabka uu soo gaarsiiyay degmada Ceegaag shacabka degmadaasina fariin u diray soo dhaweynaya musharax soo dhawow degmadaadii iyo gurigaagii iyo goobtaadii ku soo dhawow musharax Khadar Galbeedi runtii marka laga hadlo Khadar waa nin haliyay ah nin kasta way garanaysaa taariikhda uu garanayaa wax xilligiisa uu soo maray marxalado badan bay degmada Ceegaag soo martay waa markii afraad oo markii sanaad ee Khadar keeno agab looga baahan yahay doorashada caqabadayna haysata runtii inaga iska saari karna xildhibaanna inaga saari karo madaxweynuhuna inaga saari karo farteena inaga saari karta inagoo isdiiwaan gelina caqabad kasto ina haysata haddaynu nahay shacabka reer Ceegaag inaga iska saari karna waxa weeye waxaan idinka codsanayaa inaad isdiiwaan gelisaan waxay ku xiran tahay inagoo isdiiwaan gelin aad iyo aad baad mahadsantihiin Soomaaliland ha noolaato aad iyo aad baad mahadsantihiin qalabka waanu kala wareegnay haddaanu nahay degmada Ceegaag shacab iyo maamulba qalabka gacanteedu soo galay Khadar waa kala wareegnay aad iyo aad baad mahadsantihiin liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland la sacanood